بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال الأول مفتي الله بروفيسور أحمد إسماعيل سلطان سيدوه وعرض المرأة ضمن المدير السري شمالية السودان الدنيا وعروض عبد الفتاح لاهي أنا هو شعر إن أنا ما بقصي لنا بعدما هذا الإسلام بعدما روحوا على الفرن يكون في عينه إن الروح مستوى أيضا قرآن الكريم waxaan ku soo dhaweynayaa hooyadaha qolka krinka lagu furi doona Axmed Cabdiraxmaan. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. عبد الرحمن عبد الله برنامج كذا وهذا كسي أفضل الدورة وسمعنا هذا كسي كوب الدورة عبد الرحمن عبد الله هو وكيل أو عبد الرحمن عبد الله هو قدوميها برنامج السودان لا عبد الرحمن الله أسكر فيه وعنده كل هذا برنامج كذا إن شاء الله تعالى عبدنا بالحكومة بروفيسور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلهي بقى محمد سكين كيني وحكى منها اللي إنها جارب السومال لما دمانته كسوق يطري مناسبة لوقت وليسي وحكى منها عن الأخيار الدنيا الله برمان عبد الرحمن عبد الله اليوم بروفيسور أحمد إسماعيل سلطان اليوم عبد الرحمن عبد الله والجبلين جوجا SCC مركا وهذه الله هذه تماشنا تاريخ وجهة تمشي تمشي الوالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u fadhinay isagana la duuga Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo ka aqoon doona shirarkii wixii soo baxay labada cisho ee SSC ay ku shaqeysay halkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا ولكن شيء مقعي عبد الرحمن هذا بدنا ماشي ينوب بنانا هكذا وحنا لو جوا لبنا نوضيالا أو دوريها لبرلمانكا أهنا دوريها أور سياسية وطني مع السلامة ونقطي سيسكن عن وقعنا إلى ماشي جوا وإن شاء الله هذا كبير سأقولها في دونه كل واحد رواية للسوق سيو سلامة لكوضو شريها بس ومالنا ليوروب وكون هيسا كل دوت للشوتين إنه إذا كده كمان يكون في عبد الله خميس في شرعه يسبسي دوشة لهاي على كل هاي مقالة هلسنكي إلهي لو في دي كل كا يسويماتي كل ما تفهم كل هاي يا مهلة وحكرا بتي على مهلة يا شريدنا سومالنا الثورة ورهانتي مسؤولية ده يبقى هاوشي لساعتي كل كا يسقى كمان توا وكمان هاوشي كل كا مسؤولية معناتي شرعه يسبسي أو شرعه هاي من كمية كل هذا اللي سبب لها يعني كوكب التغير وحنا نروكرا كنوع بروتي خاصة أمرتي آلي أرضي وبلد ويحوها كيو رأي إلى هاي نوصلنا كوكب الوضع كتيرة رأي دو هو كما سنتي صوت التاولة وحويا كل المسؤولين الشرعية السماء الثورة هاوش أبو قال له عرس كي قال له وكتبات كي قال له رهانتي وما يسألنا ترى ومنعني فلاتين أدي أنا هيسن إنه
rag iyo dumar leh oo mas-uuliyiina oo runaantii xagga dambe ka riixayay lana shaqaynayay labadii cisho runtii waxaan u dhacay kulan aad iyo aad u qurux badan leh oo runaantii aqoonyahan fara badan leh dad badan oo aqoon leh rag iyo dumar leh meesha ay isugu yimaadeen ujeeddada ugu weynaysan meesha ay isugu yimaadeen ay ahayd sidii wada shaqaynteena Yurub qoysaskii hadday tahay aqoonyahankeedii hadday tahay waxgaradkeedii ay tahay inaga lafteeda hawlo badan baa Yurub naga haysay runaantii si aynu isku soo dhawaan lahayn waxu wada qabsan lahayn u tamarin lahayn runtii nolosha Yurub naga haysta number one taasay ahayd qodobka labaadna wuxuu ahaa ee meesha laga hadlayay waddan baynu ka nimid runtii qoysas baynu ka nimid gobolaynu ka nimid waddankiiya bal wixii fikrada ee lagu taray wixii tala ee lagu darayo ee la xidhiidha horumarka iyo aqoonsiga waddanka oo isagana aad looga hadlay runtii meesha si gaar ah ayaan u jecelahay runtii inaan ugu hadalko macalinkeena sare aqoonyahankeena sare oo runtii loogu yimid Maraykan qaadan kaaliso oo labadii cishay runtii meesha laga joogay wax badan badan lagu kordhiyay keliya aan lagu kordhin oo keliya talooyinka la xidhiidha wixii waddankeena laga aaday Soomaaliya laakiin runtii wax badan oo aqoon laga kordhiyay runtiisa looga siiyey bal sidii dowladda Soomaaliland ee Yurub aw hana qaadi lahayd laakiin ay maanta joogto ay uga xooganaan lahayd runtii wax badan oo aqoona lagu biiriyey oo weliba marka galabtii iyo fiidkii iyo habeennimadii la isu yimaado runtii waxaan yacni la yaabay igama aha runtii ammaano laakiin ilaahay caafimaadkiisa iyo cimrigiisa iyo aqoontiisa iyo maskaxdiisa ilaahay ha u daayay ilaa kowda habeenimo labada habeenimo xalay ugu dambaysan runtii aanu la qaybsanaynay khibraddiisa iyo aqoontiisa iyo bal wixii taba iyo tusaaleyna ee uu siinayay dadka aqoonyahanka rag iyo dumar lahaa meesha weyn hadalka waan ka baxayaa reer Finland ahaan iyo reer Helsinki ahaan barun ahaantii sharaf iyo karaamo iyo xushmad baad naga midantii runtii si aad nagu soo dhaweyseen waddanka keliya aan ahayn inaad shirka runtii aad martigeliseen laakiin si kal iyo laab ah runtii iyo niyad wanaag ah oo keliya inaan ku furtay hotelkii laakiin aroornimadii naloo imanayay fiidnimadii naloo imanayay ilaahay khayrkeeda iyo wanaaggeega hayna siiyo dee wanaan isku arki doonaa insha allahu goobo kale oo Yurub ah wanaan ka baxay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anugu de waa ka tirsan waxba ka mida baan ahay markaa jaariyadda runtii waa mahadnaqaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa munaasabadan ay noo diyaariyeen waxaynu ugu mahadnaqaynaa siday u barkigeliyeen shirkii jaariyadaha Somaliland ee halkan labada cisho ka socday oo walaalkii Cabdiraxmaan runtii uu ka warramay ammaanta ay leedahay jaariyadkii sidee joogiyey kaasina kulley waa dhaqan Somaliland leedahay Finland gaar leedahay marka jaariyadana hawlaana kulamada qadiya ilaahay ka dhigo qayb guud ahaan deedeega isku cusub kulley wajiga isku beddelan yahay waddankiina daaba ka soo maqnaa hadda loo bilow ku dhow laakiin guud ahaan Somaliland waxaa ilaahay ugu mahadnaqaynaa inay tahay waddan nabadeed oo nabad ka jirto oo horumar ka jiro marka qaarkood waa laga yaabaa dayna maqashaan dhacdooyin dhacay ama khilaaf yar laakiin dhaqanka Somaliland bay ka mid tahay in wax kasta oo soo baxa lagu dhameeyo isafgarad marka guud ahaan waddanku waqtigaas dee aan kaga yimi may jirin waxaa la filayaa waddanku in horumarkiisa ka sokow in doorashooyin ay qabsoomaan 2015 waxaa ka warhaysaan in guddiga doorashooyinka qaran ay ku dhawaaqeen in la qabanayo diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada diiwaangelinta kadibna waxaan rajaynayaa in doorashada ay qabsoomi doonto haddii ilaahay ka dhigo Somaliland doorashooyinka qabsoomay tani waa kii lixaad ay qabanay waxyaabaha lagu qiimeynayo Somaliland waxaa ka mid ah doorashooyinku ay qabsoomeen waxaa ka mid ah in si nabadgelya u qabsoomeen waxaa ka mid ah in goobjoogayaal caalami ay joogeen oo warbixinteena qura aan ahayn laakiin dee warbixin caalami ah mar walba laga qorayay tii ugu dambeysay waxoogaa dhibaatooyin way jireen oo waa ka warqabteen waxaa ugu wacnaa inta badan sida la tuhmayo iyadoo aanay jirin diiwaangelinta codbixiyayaasha markaa taasi
si looga digtoonaado aanay dib ugu dhicin. waxaa la rajaynayaa in diiwaangelintaasina mid tii hore ka qurux badan ay noqoto. berigii hore faraha la iska qaadayo, faraha dad badan laga yaraanay saarin markii la saarayay, laakiin tan waa teknolojiya ka sarreysa lagu samayn doonaa insha allah oo sida rajaynayo la qorsheeyey oo dadka indhaha laga sawiro oo faraha laga sawiray. waxaan umaleynaya malaa halkan ba oo technology sarre oo waa laga yaabaa laftigiinu yani Finland weli gaadhin baa laga yaaba teknolojiyada. laakiin markii la tirsay si loo yareeyo khaladaadka fara badan, shirkad Maraykana la kareeyey oo qolada bixiyaasha kareeyeen. markay daraasaad badan sameeyeen waxaa usoo baxay nidaamka malaa ay Soomaalidana eegeen arrinteeda gudahaan iyo sida wax loogu noqnoqdo iyo waxaasoo dhan si loo baajiyo. waxaan rajaynaynaa in diiwaangelin wanaagsan inoo dhacdo. iyo xeerkaas sharcigaas inaya dadka qaarkiisa ku qancaan karo. halka laftigeena jaaliyadu inay xisbiyada ku qaybsato wax dhibi kuma jiro. saddexda wax iska kaana haddaad kulliye gashay iyo haddaad mutari gashay iyo haddaad fadar gasho inkastaan u jeclaa wadana wada gashaan. laakiin saddexda u fiican wadana iyo aad gashaa waxay leedahay waxtarkaaga iyo ra'yigaaga inaad ka dhiibato sidii loo hagaajin lahaa xisbiga, sidii waddanka loo hagaajinayo. dadkuna way iswada jecel yihiin waa isma necba, axsaabtu isma necba, siyaasiyiintu isma necba, laakiin da waa la tartamaya. tawaasida lagu fadhiyaa la isku haystaa, kayga waa lagu haystaa, ana qaar kalena ku haysta kayga waa marka laakiin wax dhibi ma jiro, waa tartan. marka waa tartan caafimaad qaba leh. marka meesha dagaal ma jiro, waa la tartamayaa si dimuqraadiya loo tartamayaa. kii aad raacaysaana idinku xaq baa leediin. waxaa la doonayaa inay Soomaaliyadnimada ku midaysnaataan, inay jaaliyadda ku midaysnaataan, inay dhammaantiin xubno ka noqotaan. sidaasaa waddanka kugu taraysa ugu taraysa haddii la ka dhigo. dardaaranka inta badan waxaan umaleyn professorka aad xuseynaysaa oo isaga mudkiiya. halka waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan leh. ugu horeyn jaaliyadda Somaliland, gudoomiyaha jaaliyadda Xasan Cali, professorka Samatar Cabdiraxmaan, gudoomiyaha SSC, gudoomiyahayga aad baan idinku wada mahadcelinayaa. garabka haweenka Somaliland ee Finland anigoo ku hadlaya magacooda waxaan aad iyo aad halkan soo dhaweyn karaan iga qiimeyn uga jeedinaya waqtiga qiimaha iyo qaayaha badan leh ee noogu yimid halkan. looma hadlaqaya dadka halkan isugu yimid, dadka hawsha kasoo shaqeeyey magacyada wasaarka dhexsanana markaa ay sheegi laakiin waxaan doonayaa inaan xuso gudoomiyaha baarlamanka waaqi raxmaan oo halkan isku aragno magaalada Hargeysa si wanaagsan ugu casuumay. mar dambe kale umahadnaqo gacantiisa aan soo dhaweeyo ayaa mudan. dadka kasoo shaqeeyey maanta iyo maalmihii ka horeeyey khaasatan ururka Somaliland dadkeeda Yurubka SSE Somaliland ya Cabdiraxmaan iyo dadka shaqeeyaan dhammaantood bayadana inaan umahadnaqo. Somaliland hanoa Somaliland hanoa waa soo gaabin hadalkayga professorada haddii hadalka loo furo oo mikrofon hor dhigto ma joogsayo. kelmadda professor la yidhaahaa waxay ka timaadaa waa noun professor, waxay ka timaadaa ficil verb la yidhaaho profess, to profess. profess macnaheedu waxa weeye marka Soomaalida loo bedelo hadalka sii daa, hadalka sii daa.
مرة دكتور بروفيسور كنت الأعراض الكثيرة مرة قالوا ما بدر النوم توكسل وكمان واحد سودي يقول أن الحكمية صوت عن يسأل الشيء أنا واحد من يضبع المواد إن كان هذا يقول أكثر والسومالي مان والسعي واحد نشوف اللي يسكت زين كان اللي واحد ويوضع كل يدرك الطريقة اللي هو بعدين السومالي من واحد ويوضع السومالي مان جديه جديه داخلي إنسان رفيع من واحد ويوضع السومالي مان جبل international لا تريد كذا لا بد من أن يكون international بكرة جديد إذا من هذا الجزائر وطن الكلية سواء طبعا وطن كان لقى قصة عبد الرحمن في وقت الرئيسية كان يقول بدل لورد جديد الكرام اللي سجى إلى قوم بدل لكن أنت عملوا عن كدر سيستم وطلوعها سجى إلى لا إيه عليه security halkana magaalada intaa leedahay disoo waxay ku dhow lahayd close to a million people ay ku dhow lahayd saddexaan marayna kana iska socono nafta qofka Soomaaliya anigu ma arag ilaa loo yactay ilaa gaab waxaan dhex maray 8 cisho wadada ku jirno oo la maraya suuqa amba dee meelaha dadku isku yimaadaan public space ya bastoolad amba qori private market waxaa guryaha la dimoogay lagu qabsanayo laakiin dibadda public space dad sita oo ma arag xamar airportka markaan kasoo degana shaygii ugu horeeyay wuxuu ahaa aniga delivery dadka gacankaasaan ka wakiilahay dee waxaan ku haynaa private security at Crescent. That's an important difference. Can you tell me? Allah I'm going to tell. What up? أنا هشوف كذي أنا هنا. لكن هذا وهذا الNGO كذا راشقين هو خيالين هوامكم المتعلمين واللي يجرا المعشرين والليالين والدوغ الطوامي يجرا كذا هذا يعني هذا وقالوا واحد قال يعني هي فانتسي وحيوان يكون ولا صبح ورا كذا صح لكن ما أنا واحد كل ده هاي أنا نيجي لكن الجرايد كله تذكر وركر دبي وركر هذا هذا يدري وحيلين يحبوا يعني هذا حتى كتلوا أمريكا هذا حتى كتلوا قانون بأمريكا كتلوا إلى libel law شيء تو أم بقف هذا ملك كذا قانون قبل يأتي أما كمان سؤال كذي سيدا أوبنا هذا الناس يجينا من بعض تجارب حكيت لي هذه ستة وأفعال رحي مستقبل حكيت لي مكة ما دام وقع أكتر هو هذه ستة وصل ولا لكن عبر النوم لمصر قصير فهمنا وحيالها الجديدة كانت أول صلاة وصول الجديدة ولا استعمال أنا وصلت وخير يعني كل مرة قف يميز وكفر مكة أو يستحي في أكيد أفضل أو كمان يحبك يا كلام سؤال أنا وصلت وأحفظ الله صلاة ديمقراطية doorashooyin la galay iyo tartan siyaasadeed oo distooraysan oo adigu gudaheena waa inay noqotaa mid ilaalisa dadka lagu tirinayo ee iyaguna ku tirsanaya mid ilaaliso oo dantooda ka warhaysa madaxweyne la fadhiyaan caawa ka warhaysa dadkaas waa inay noqonaa inaan noqon عندما يو راسعنا يو برعاي بربري بور ميوسيل إذا كفرينتن ولا دربنا عندها كيسد دعنا ولا نقول اسمية الكلاية هو صار هو الرئية ذكر سليم هو الحين
inagoo waddankeena iyo hawsheena iyo wadlasayno iyagana isha kale ugu haynayno uga warhaynayno ashyaa waa aad iyo aad iyo aad bay qaali u tahay waktigeedii lagu jooga. asalaamu calaykum waa mahadsantiin professor waa loo dhameeyey isagoo caawa halkan martiina uga waxaynu ku daynaa qaybaha su-aalaha oo aanu ka maqnayn cabdiraxmaan cabdilaahi laftiisu cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi laftiisu laakiin intaa aynaan su-aalaha u gelin waxaa jeclaan lahaa si faa'iido ay nagu noqdaan in qofku markuu wax weydiinayo uu su-aal علي خليف كرايد iyo علي عيسى عبدي كتب عشان wuu socday ilaa imkana wax war laga mahayo waana meesha ay dadkani ka yimaadeen oo fadhiyaan shirkaas waxa ka socdo Soomaaliland wax war laga mahayo waxa adiga xiriir odayada mid dhexda hore saaxiib ah haydeen waxaan ku ilaahaa anigu dadka iyadoo kaftanka ay wax badan ugu dhamaystaan waxaan ku ilaahaa dadka weliba khaasatan markaan walaalahii bari aan wada doodnaa marka qaarkood ilaa 4 subaxnimay nagu gaadhaa aniga ugu dambeeyay ya tameel ay ku xidhay anu doodada kale ilaa almost 4 o'clock in the morning waxaan ku ilaahaa anigu up to a certain point abtiyaashii iyo hawlyarahay wada qaata aniga jedka isdalay garmi wanan anigu hooyada iyo aabahay weligay yaa lahay laguma dhalin ana maan garan inaan kala qaybiyo hooyadayna tuuro aabahay ma raaco waa nacasnaftaas abtiyaashii iyo hawlyarahayna hadday halka ay mariyaan oo iyadu wadadaasuna inta yaabtay halka ay mariyaan anigana waa ii buldara iyagana waa kuna casay way shisheeyay iyaga waxa weeye markaa birnimada anu waxaan qabaa dadka samaro mayra waxay ka yimid weligoodba way ogolaayeen inay tiriyiin hadda ciisaha layla sii kalbedeeya weligood bada ogolaayeen inay diiin waa ka garanaysaa buugadooda ku qoran tahay iyo taariikhdooda abtiyaashii habaryarahayo ya idinku xagee joogtaan xagee joogtaan waxaa se rajadu waxay ku jirtaa anu beri waan garanayaa dee ma yiri kolkoodaa waan joogaa ay dirku ahaayeen samaro iyo ciisi iyo niman dadka saarka jooga dee laakiin waxa la ilahaa isaaq baa la dhahay laakiin taasi way soo xirnay inteedii baday way soo xirnay marka inaad moodo inay revision ku dhacay oo dadka intiisa badan community abayaasha iyo abaryarahay ay soo fahmayaan kelidood inaan meel wax marihay they can't dadkan soomaaliyeed kelidood inaan meel ka weligeed maxaa laisla weynaa they can't I'm sitting here tonight they can't kelidood inta kalena ama kuwa jooga koonfurada ee qaarkood halkan fadhiya ama samaroon iyo ciise ha noqdaan iyaguna they can't keligood inaan meel kolkaas sida laisku ogolaanaya arrintaa loo dhisay maaha uun wax haddii la doonayo la sameeyo waa necessityguna waa waxaanad ka maarmin waa necessity marka waxaan jeclaan lahaa guddoomiyaha bal hadduu wax ku yar daraya arrintaas inuu ka yar faalooda anigu soo waxaan leeyahay dadkaan aqaana way ogol yihiin hawshaas sida loo gelayo iyo farsamadeediisa dee waxay u baahan tahay tacab iyo investment bay u baahan maaha qabiil maaha oo dee dadka kale hala xumeeyo maaha anu beri horaan kala saaray cilmiyan tolka iyo qabiilku siday u kala duwan yihiin qabiilku waa rag isku abtirsaday oo inta kalena daadinaya amba boobi laakiin tolku dee waa thick noocyo network noocyo badan leh soo aad garamaysa
marka anigu waan rajo weyn baan arrintaa ka qabaa abtiyaashii habaryarahayna intaan noolahay gudkaan waa la dhici ya inay aada usii fahmaan oy ku dhaqmaan soo hadda garamaysa dee wax dantaa ku jirtaan haddii adduunyada wax nala qaybsanayo dantaa ka ku jirta taasi waa ta fanaanka anigu ciidan kala hadlay sida runta ah ma jirto aan garanaya anigu wixii aniga shaksiyan dee anay jirta wixii aan ka yeelay anay ii tahay private waxay ka yeelay laakiin cid kale oo warkaa gaarsiiyey ma jiro de waxaan isiiyey anigu oo laygu yidhaaha meeshaan tagaba waxaa jooga somaliland representative ba halkaa jooga somaliland dowladeeda qof baa halkaa u jooga sweden u joogo norway u joogo germany u joogo brussels u joogo england u joogo hadday dab tahay what the hell do they do maxay qabtaan haddaanay taasoo kale intay fahmaan kuwika qayladoonka ya anay ka qayb gelin maxay qabtaan laakiin anigu personally maan qaylin aniga wixii kaliya ila soo gudboonaaday maan qaylin maybe waxaa habboonaan lahayd baa laga yaaba inaan qayliyo laakiin waan bartitaa maybe next time I will qayl amuurood ka soo shaqeey iyagay u taala sida waxay tusayaan dad khubaraa oo reer somaliland oo qadiyadda somaliland aaminsan oo kala googoyn somaliland marnaba aan ogolaan karin laakiin dee sida loo kordhinayo somaliland iyo arrintaas labada moodada shaqadooda ay noqoto kow sida adduunyada la isku barayo aynu markaa u helayna dee fursad adduunyada aynu isku macnayno oo laynoo garto waxaynu doonayno maxay kelmadda ku dheer dadka reer somaliland waa aqoonsi recognition kow wadada loo maray ay kasoo shaqeeyaan oo keenaan ka ra-iisul baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo inta kale la shaqeysa markaa dee iyagay u taala see u cadashanayaan iyo recommendationka waxa ka yeelaya laakiin laga soo shaqeeyo sidoo waa kow two shaqadoodu inay noqoto inay kasoo shaqeeyaan sida dib loogu habeynayo wada lahaanshaha iyo wada jirka dadka reer somaliland wadanka waa la wada leeyahay sida loo habeynayo inay kasoo shaqeeyaan oo dhulka ay gadalaaca ka taagan yahay sida arrintaasi looga dabaalayo in laga soo shaqeeyo anigu ajendaha waan noo dhigay madaxda dowladda khaasatan executive office waa noo dhigay laakiin ilaa inta ma hayo innaka haddaynu nahay dadkida somaliland madaxdeena qaarkood way noo fadhiyaan somaliland saaxiibaya meel fog bad gaadhayso hadday ugu badatana way dhugtay oo noqonay sidaa ugu boodbooda way dhugtay haddii arrimaha barigoo kale for example aynaan u helin khibrad cusub oo duwa keenta haddaynaan u helin period so hadda inta boorama iyo maxaan ku dhahaye iyo cerigaabo weliba cerigaabo ay noqoto contentious area laakiin burciyo boorama iyo hadisiyo berbereyta intaagaa ku nool ay isku yarsansanqato un iyo ya ma soconayso ummad baynu nahay waxaan ku doonaynaa ummad baanu nahay la yidhaaho somaliland axaan jimayna marka hawl baa inoo taalla halkaa in la keeno xafad waa kow dadkeena soomaali maxaan ku dhahay reer somaliland bari degan anigu challenge-ka waan hordhig challenge-ka waxaan maray diwaad dhegeysatee maan filaya doodana dhex maray maraykanka waan hordhigayo argument-iguna waxa weeye waa dee waajib baanu idinku lahayn ini kala tahay hadday wax qaldan yihiin noo soo dhiga banaanka waxa qaldan sheekadiina aan si wanaagsan u dhageysano aan u maqalno dawada waxaad idinku u haysataan banaanka soo dhiga annaguna waxaanu sidaan u arkayno ayaanu banaanka soo dhigi marka waxaanu ka shaqeynaynaa waxa af ingiriisiga lagu yidhaaho win-win idinkuna guulaysto annaguna aan guulaysano aan wada guulaysano marka dar halkan markaanu carruurta ahaan gelilay waxaanu ciyaari jirnay ciyaariyada carruurta markaan la yidhaho jagi jagi yaad maqasheen jagi jagi inta xubuubka dhagaxa ma faqaatid dhagax sida loo qaato la tiriyo ayaad sidaa u tuuraysa markaas dhagaxii kala daadinay kana waa mid baa tuuraysa kolka kaa intaad tuurto intuu soo socdaad intan kala qaadanaysaa isagiina markaa gacanta dudhiso marka wax walba waa qaadan cid odhanaysa jagi jagi ciyaaraysa siyaasadda somaliland ma jiro
abtiyaashii habaryaraana haddii leeyihiin jabaan ciyaari idiima soconayso taa ogaada soo digaramaysa laakiin amba boora ma degano amba buuqa ma degano amba berbere amba saraxda amba erga ma degano ijazal maad community walba waajib baa saaran waajib baa saaran waajibkaas sida Somaliland loo wada dhisanayo waajib baa ka saaran community walbana xaq bay ku leedahay wadanka xaqna waa lagu leeyahay kolkaanu jaalid baan horta walaalahan bari ya soo digaramaysa waxaan ku yidhi anagu jagajagayda lama ciyaaran dee kuwa jagajagada ciyaar doonayana ciyaaraan waanu idiin soo raaca waynu iska qabanay yeeli maydad soo adamana laakiin inaynu wadankii wada dhisano marka dee burhaankiina waxaad haysaan banaanka soo dhigata ya waxaad baxaysaan banaanka soo dhiga halkay ka qalloocanta iyo halka laga hagaajin karo annaguna siday noola egtahay baanu soo dhigi labadiiba sidaa la isku gelin ingiriiska waxaa la yidhaha synthesis inaad labadii isku darto intanaad ka soo saar wax labaduba ay raalli ka yihiin oo soco here is one example military of the discourse reer Somaliland way u taala su-aashaas waa dhulkay ka bilaabanto in amba la isfahmo amba albaabka markiiba u xidho waxaa ka mid ah oo ilaa maanta 20 sanadood ilaa 20 since 1992 soo mahay 1991 so wow 23 years old so ma yeedana noqonaysaa this coming May so ma ilaa maanta anigu mana maqan mana arag meel dadka Somaliland amba madaxdooda amba shicibkooda amba intellectualskooda ay kaga doodayaan sida la iskugu keenayo 18th May iyo June 26 كل 18th May اللي يراو تاريخ ذي Somaliland 18th May ما يبلغ تيجي ضم اللون ده ما تجيه تكره لما جبته صاحب يا المصر عنا صدق وسيلة برون ورنا 21st of October يا بيجرته مركز 26 June ما يجري July معاك راي 1st May يجري يمكن ما أنا 26 June معاك راي 21st مصر عنا يجيبوا واحد في الدولية هذا بلاه وين تيجي استانوا واحد في الدولية بيرجع سمتر وده 26 يوم إنه هرت وضع يلا يوم الدين ما كسر وضع مين تحسب قيمة الحين مين ما تحسب حين الجدار ما هو بوق قرنين تحسب حين عالم كبير كذا قرنين جوابت لي الله ما هيدي هدي عنه ما يجي جوابت مركب وحياة عن ربع هذا حين يدور يديك مو عينان سخرامين وحكمل عدين الدول هذين إنه وذلاء وحكمل May 18 وما نوين أو في نوين لو دكتور في المنى الحضوري no question about that ديك بدل ما أخذ أعتقد بدل ما أخذ وحلو بعض الحشمات يميل بيلاد 26 جون ده هو مركي وجوه الرسالة ونقولنا يدد الدنيا ده لو أنا كنا واجبنا أنا واجبنا لا بدأ أصير اللي يسوق هنا يلا يسوق ميرة وحي كسر وحيان لا بدأ يا waxay noogu bantahay intellectual hawl halkan iyo hawl halkan labadaas ay noogu tahay shaqadii dhamay wala su'aal waxana noqonaysa haddaynu ka arkaanay inteeda karana soo saarno formulada isku keenaysa 18th May 26 June waxay noqonaysaa jawaabaha ay noo hayno walaalaheen bari ya ee doodooda kule for example anagu de wax arintani waxba kuma dhihin kooran marka inagu aan diyaarsan inteeda kale عندي إرث ومال أنسي عندي أرسم waxa ay nala tahay in ku daweyn karno arrimaha muuqda ee dhibaatooyinka ina dhexdeeda muuqda ku daweyn karno waa inaan noqono proactive inaan ciidan u geeyo ciidan u dul joogin meesha ciidamada boqol ciidankeed waxaynu soo ogaanay Soomaaliland oo 18 May marxati ka tahay boqol ciidan hadda keento diyaaradihii South Africa soo kareysato dadaan isii burcad ya which they did haddana inaanay dad aan jirin karno. You can't force people to belong to you. You have to convince them in a kaddaashiiso inay dani ugu jirto in la wada baraari karo haddii wax la wada yeesho laakiin waa kugu qasbi ma dhacayso siyaad baa ku bixi karo marka dambe waa laga guulaystay. That's the whole point of the SNM movement. Waa laga guulaystay
marka adiga jawaabta waan yara dheereeyey laakiin waxaan leeyahay yaynaan isku hawlin amba shirbe caawa kuli lagu leeyahay halkaba inagu waa inaan isku hawlnaa sidaynu u hananaa dadkaas walaalaheena samata oon iyaga challenge u sameynaa haddaan waqti haysano waan idin sii anigu waan darsa arrinta waan idin sii furfuriga hada inta waqti ma haysano waxaan ugu leeyahay inagu we part of Somaliland intays oo goleeda Somaliland inaan inagu ka shaqeyno sideen u hananaa iyaguna ay u guulaystaan which means dagaalka inay ka baxaan gaajada ay ka baxaan oo iskuul xumada ay ka baxaan waa kadib si u guulaystaan inaguna aan u guulaysanaa si wadankii au sii dhaqaaqo au sii socdo inaynu inagu keeno xisaabteena dhankeena aynu miiska soo dhigno marka iyagina aan challenge ku sameynaa anu sidaas سؤال ولي لو بريد هذا شيء سؤال هذا كستان يرجع لها وهي أربعة سياسات رأي دومي هو فنياء بروفيسور كلفتي سوق جواب كره لكن بالواحد برشة هي قربها هي نباتوين كنا هايستي الريفيلان بالواحد هو قدوم بروفيسور كلوتي كاش خلينا سوتش اللي وحويان بروفيسور كويدينا توس هذا هو بروفيسور ديار موت إن سوماليلاند سياسة ديلا كغيبش أو أما أوتر تنتم حلقة خسرة أما الحسبيات ميدون كبيرتو أو سياسة قوتي إنه نيجا سوا سياسة رئيس سوماليلاند وأقول عسنا فقط ورا لو كذا لو وين هي ديلا أو هذا الميدو أيترسون أو أقول كبر تيكوس الميدو سلم جامي waxay ku raacsan yihiin hore u sheegay walaal soo dhigay gaajadu markay albaabka ka soo gasho fadliga oo gobolka kala soo gado albaabka ay ka soo gasho waxa jacayl ilaa daaqadu ka baxaa ka oda in the family marka baahiya karoodis marka baahidu way keentaa nacayb xaasidnimo ayay keentaa qabiilkuna wax kale ma tolka waan ka duway dadka waa dad meel ku wada nool oo balaayo iyo baas dadka shambuuraysta barwaaqo iyo wanaagna wadaaga ya maqaadiirtana sidaa laakiin qabiil waxa weeye wax kale maahe wuxuu aada u soo baxaa marka sidaa ay noqotay scarcity yani wax walba ay gudhaan faqrigu sidaa u noqo waxay ka mid tahay waxyaabaha dadku marka ay isticmaalaan qabiilka laba qof unbaa isticmaala aniga islaamada laba qof uma isticmaalo oo dee adduunyada kale loo qabiilku ka jiro amba race laba qof uma isticmaalo qof baahidiisu intay badatay meel xagtala shaqalaanta ay sheegayso marka ay yaa reebelaa haddaanan u baahnayn yaa reebela haddaanan u baahnayn qabiilku u baahan talabaadna waxa weeye qof saaqida oo taalib kale aan lahayn wax kaloo iibiyana aan hayn ya ayaa taa garoonka soo dhigaya yaa reehebelay wax kaloo iibiye ma hayo waa certificate uu sito qofka saaqidka iyo qabiilku halkaan kaga haro siyaasadda Somaliland waxaa lagu saacbinayaa oo lagu jecel yahay oo dhicina jabal lagu odhanaya ya inta aad santarka taagan tahay xaggaana aad u leecayn xaggaana aad u leecayn xaggaana aad u leecayn xaggaana aad santarka taagan ya qof walba ku jecel yahay qof walba ku saacbinaya anu taasaan ku marqaasanahay marka libaaxyada waaweyn ee fadhiya dee meelaha maxaan ku dhahay alaabta lagu dubana ya waxa weeye la tartankooda waxay u baahan tahay maaha intaad maalinta taana waa kale maaha waa inaad xisaab soo dhigatahay inay tartan baa jira tartan maxaan ku dhahay xaqa oo normal ade marka anigu kamaan fikirin arrintaas yani oo kala kamaan goosa Somaliland inay hagaagto oo sii socoto aniga way iga go-an dadku kama way iga go-an
I'm committed to that. laakiin tartan siyaasadeed waxbaa maskaxda weligeed buuxdaa oo de marka airportkii Hargeysa dadkii ay iska yimaadeen waxaad tusanta wallahi tani malaha ma baabay meeshii kan kaali weytay laakiin waxay u baahan tahay calculation, very careful calculation ayay u baahan tahay inaan anigu hubsado inaan dadka pulskooda hubsado ya oo aan jacaylkaa hore iyo qosolkaa hore iyo macaankaa hore aanan ku wareerin mid dhacdo ila siyaasadu qaraarna way leedahay ogow ya tartan haddaad gashana dad baa yaad kasulka isku dhufanaysaa markaa ka fikirsato calculation, careful calculation marka aniga strategigaygu imika wuxuu yahay let me make it very clear strategigaygu waxa maaha tartan siyaasadeed strategigu waxa weeye reer Somaliland dhalinyaradooda khaasatan iyo dumar iyo raggoodaba isbar iyaguna ha ku bartaan adiguna baro kolkaas waxa iyagu hayaan waynu arki dee waxay miiska soo dhigaan laakiin horta iyaga baro that's my strategy iyaguna ha ku bartaan